xisaab laba god isku darkooda 99 lagu daray 18 waxay la mid tahay adigu sheeg 99 markii lagu daro 18 maxay la mid tahay si aan uga shaqeyno waa kan sida looga shaqeeyo buugga siduu u samaysan yahay godadkaas ayaa loogu talagalay in xaraf walba mid walba xisaab kasta in la geliyo hal god halkii god iyo halkii xaraf halkii xisaab baa isla eg halkii number 9 ayaan hal god geliyay 9ka kale tan godka kale ayaan geliyay 99 9 hoostiisa waxaan ku qoray 1 9 kale hoostiisa waxaan ku qoray 8 99 waxaan ku hoos qoray 18 kadib waxaan sameynayaa hoosta ayaan ka xariiqayaa markaan hoosta ka xariiqo 99 lagu hoos qoray 18 oo hoosta laga xariiqay waxay tahay lama yaqaan laakiin markii calaamadda loo yeelay ayaa la leeyahay xisaabtaasi waa xisaab noocaas marka hadda calaamadda ayaan u yeelayaa lagu daray xisaabtaasi waa lagu daray lagu daray tahay waxay sheegay calaamadda haddii calaamadda aad ka tagtid hadda waxay tahayba lama yaqaan haddaba hadda ayaan shaqadii bilaabayaa marka 9 lagu daray 8 9 markii lagu daro 8 maxay la mid tahay 9 lagu daray 8 waxay la mid tahay 17 toddobadii hoos ayaan ku qortay halkiina kor ayaan ku qoray 9 markii lagu daro 8 waxay la mid tahay 17 toddobadii hoos ayaan ku qoray halkiina kor ayaan ku qortay oo waa qaatay halkii aan qaatay oo lagu daray 9 hal markii lagu daro 9 maxay la mid tahay hal lagu daray 9 waxay la mid tahay 10 lagu daray hal maxay la mid tahay 10 markii lagu daro hal waxay la mid tahay 11 hagaag 99 lagu daray 18 99 markii lagu daro 18 waxay la mid tahay 117 tusaalaha labaad 94 lagu daray 19 waxay la mid tahay adigu sheeg 94 markii lagu daro 19 waxay la mid tahay adiga laga rabaa inaad ka shaqeysid bal marka aan shaqada bilowno waxaan sameysanay meeshaan uga shaqeyn lahayn 9 ayaan ku qornay 4 ayaan ku qornay 94 saasaa la rabaa inay u kala cadaadaan buuggu wuxuu leeyahay meel loogu talagalay xarafka loogu talagalay inaad ku qodhid haddii laakiin waxa si khaldan u qodhid ama kala dheereysid ama isdaba marisid ama si kale u qodhid hadhow xisaabtana kama shaqeyn doontid waxa aad qodhayna lama fahmi doono marka 94 saasaa loo qorayaa godka saasaa loogu dhex qorayaa afartana saasaa loogu dhex qorayaa 94 9ka hoostiisa waxaan ku qoray hal afarta hoosteedana waxaan ku qoray 9 9 iyo 10 94 waxaan hoosteeda ku qoray 9 iyo 10 marka kadib waxaan sameynayaa hoosta ayaan ka xariiqayaa 94 oo hoosteeda lagu qoray 9 iyo 10 oo hoosta laga xariiqay maxay tahay lama yaqaan waxay tahay waa in markaa kadib aan ku qoraa calaamadda cadeynaysa xisaabtani nooca ay tahay xisaabtan nooceedu waa lagu daray calaamadeeduna waa lagu daray halkaasna calaamadda looga qoraa geeska ah hagaag hadda ayaan gelaynaa shaqadii 4 lagu daray 9 4 markii lagu daro 9 maxay la mid tahay 4 lagu daray 9 waxay la mid tahay
saddex iyo toban saddexdii ayaan waxaan ku qortay hoos halkiina kor ayaan u qaatay oo waan qaatay afar lagu daray sagaal waxay la mid tahay saddex iyo toban saddexdii hoos ayaan ku qoray halkiina kor ayaan ku qortay oo waan qaatay haye halkii aan qaatay oo lagu daray sagaal hal lagu daray sagaal maxay la mid tahay hal lagu daray sagaal maxay la mid tahay hal lagu daray sagaal waxay la mid tahay toban haddaba toban lagu daray hal toban markii lagu daro hal maxay la mid tahay toban lagu daray hal maxay la mid tahay koob iyo toban hagaag sagaashan iyo afar lagu daray sagaal iyo toban waxay la mid tahay boqol toban iyo saddex sagaashan iyo afar markii lagu daro sagaal iyo toban waxay la mid tahay boqol toban iyo saddex